عقوبة من دقو أدك عقوبة من دقو أدك إلا الله يو كعمه هذا اللي جوجويه سيستاف الله شره دول كلا جنب السافريه حبسية اللي جليه لأن وحوي أمانك وأساسي وحلو عيارنا معه فتنك هي فتنة كعنت يضوي ويفوض الضحي لكن إن الدنيا والله ظهر تضو والضب كذا اللي بختيه مسألة فضد معه سيداس درادت dadka ku ciyaaraya oo bulshada mashaacirteeda kicinaya oo fitanka shidaya waxay u baahan yihiin inay fahmaan waxa ay ka shaqeynayaan waxa uu yahay siyaasaddu waa ciyaar wasakhaysan siyaasaddu mar haddayna siyaasad sharciya ahayn oo diin ilaahay haddayna ku qotomin waa wax wasakhaysan weey waxa laga raadinayana waa wax aad u qiimo liita weey adduunyada iyo waxa kor yaallo oo dhan kuraasteedii iyo jagooyinkeedii iyo xoolaheedii iyo shahawaadkeeda ayaa nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inaysan kaneeca garabkeed u dhignin waxa sidaas oo kale ah kursi baa la kala qaatay iyo qola wax boobtay iyo midba mid ka qaatay in amniga khalkhal loo galiyo ama dhiig loo banaysto ama xoolaha muslimiinta loogu ciyaaro xoolaha loogu dunto xaq darro loogu tuntay abadan yaa baneeyay يا تبريري يا فصحي هاي سو مسلمتي كابا قبيل باتاي سو مسلمتي سياسي باتاي سو مسلمتي دليرة تاي سو مسلمتي سو إلهي كما حكومة شرعي ملي سو ربي قال مهر تجي دون تو كل ما حساب تبي دونه أبدا واحد شرى مقدسات واحد شرى خط أحمر وأن الجد بكريم باتشرى waxaa ceeb inagu ah waddankaa dhaneed aragtay oo loo baahnaa inaan u noqonno dayasho wanaagsan oo ilaalinta iyo xasiloonida iyo nabadgeliyada iyo dadka xuquuqdooda in la ilaaliyo inaan hormuud u noqno loo baahnaa in gobolladii soomaalidu degi jirtay ay noqoto astaanta la soo qaato oo xoolo la burburiyo iyo suuqyo la gubo iyo dad la laayo iyo wax la kharbudo inaan tusaale u noqonay laysa lana mathalu saw tusalahun malihun bin Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadan muslimin nahay tusalahun malihin mananhum tusalahun waxa xunna laga dayda ma aha gaala kuraas in laga qaatay tirsanay gaala wax kala qaata tirsanay kuwa in la boobay tirsanaya hadana ma cadalika waxa aan sameeynaa in sameeyay wayarta hatta haday sameeyaan inaan anaga ka waantoonay muslimiin baynu nahay hadiisa ay kula tahay odayga siyaasiga dhalinyarada dumarka xeelaa noocaas ku kacaya haday kula tahay hadii aad badbaadood adduunka ku badbaado inaad ilaahay maxkamadiisa aadan ka badbaadaynin masalada ku xisaabto dhiig muslim marka daadiso xoolo muslimiin aad gubtood baabi'iso waxaad ku tala gashaa maalmaha hadaad noolaato meesha ku sugaysa waa maxkamada rabbi tabaaraka wa taala mana ku anfici doonto xisbi baan taageeray mana ku anfici doonto qabiil baan taageeray mana ku anfici doonto waa la diray oo mursal baan ahaa ala mas'uuliyadu ku saaran tahay nabigeena waxa ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi calan iyo bandiirad aan la garanaynin meel u jeedo in dhala ruuxii ku dagaalamo hoosteeda wax meel la socdo meel ka socdo aan la garanaynin asaga oo qabyaalad iyo qabiil dad ugu yeeray ama qabiil iyo qabyaalad u hiilinaya ama xisbi u hiilinaya ama ma aha u caraysan qabiil iyo qabyaalad u caraysan nabi wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam dhimashadiisa iyo dhaqankiisuba inuu jaahiliye yahay waxaan islaam ahayn wax diinta khilaafsan oo gaalnimo dhaqankeedu dhaqankii gaalada waa dhaqan islaam ah xisbi wax ku tari maayo qabiilna wax ku tari maayo kan ku dirayna wax ku tari maayo siyaasi kursi doonana wax ku tari maayo dantaada inaad garataa ku fiican waxyaalaha noocaas oo kale ah mustahjan waay mana habboona
innaga oo muslimiin ah in whatsappka la isugu diro oo baraha dadku ku xidho mujtamacu ku xidhiidho la isugu diro oo dadka la xamaaso geliyo oo qabyaalad lagu xamaaso geliyo oo wax magaradka la diraayo sala saxsan ma war xoolaha la gubayaa iska leh hantidan baabaadayaa iska leh agoon baa leh fuqaraa leh masaakiin baa leh dad baa gurigoodii ka soo toosoo dab aan u shidmin yaad ka gubtay yaad wax yeeshay adigaa wax is yeelay waxa noocaasoo kalea inuu dhaqan inoo noqdo sax maaha waxa noocaasoo kalea inaan tusaale u noqonnona sax maaha in aynu noqonno ummadda tusaale u noqonno mujtamacaadka aan la degannahay ee gaalada ah iyo qayrkoodba inaynu tusaale u noqonno wanaagga iyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo nabadgelyada iyo xasiloonida innagay dan inoogu jirtaaye inaynu ilaalinayo waa laga maarmaan xataa hadday cid kale ku ciyaarayso inaan innaga ku ciyaarno maaha lianna waxa weeye dabkeedu innaga ayuu ina taaban qayrkeenna wuu taaban nina ka badbaadi maayo wuxuu leeyahay imaamu albukhaari calayh raxmatullah saxiixiisa wuxuu ku keenay khalaf nin la yidhaahdo oo ka mid ah a'immadii salafka ridwaanullahi calayh khalaf ibnu xawshab wuxuu leeyahay waxay jeclaan jireen salafku markii fitanku bilaabanayaan inay soo qaataan oo tusaale ahaan u soo qaataan gabay uu tiriyey nin ka mida gabayaashii raggii gebyi jiray ee jaahiliga imrulqays la yidhaahdo bukhaari baa keenay markaasa waxa weeye waa gabay tilmaamaya 3 bayd buu ka kooban yaho wuxuu tilmaamayaa fitnadu markay soo socoto bilow tahay waxay u eg tahay gabadh dhalinyaro ah oo aad isu qurxisay quruxna u dhalatay qurux badanna jidhkeeda saaran yahay nin kastoo wax magarad ah oo xaqiiqadeeda aan fahansanayn ayaa marka ku ordaya markii ay hurto oo fidnada dadkeedu huro oo waxay galaafan kartay galaafato markaasaa midabkeediina isbedelaya habar cirowday oo soo uraysa bay noqon buuhi markaas ninkii dhunkan lahaa kii shummin lahaa kii u qasdi lahaa doorsoontay midabkeediina doorsoomay urkeediina isbedelay ayay noqotay gabadhii quruxda badnayd ee shalay lagu wada yaacayay nin walba igaarsii lahaa ee nin walba inuu daawado gaadho uu raadinayay maanta waxay noqotay habartaa uraysa ee nin walba ka cararaya xaqiiqadu sidaas wey fitanka marka ugu horraysay bilowga yihiin nin walba waa tijaabinaya waxbuu ka raadinaya laakiin maalinkay saldhigato dabkeedu hulco nin walba wuxuu leeyahay waa cararaya waxaan doonayaa inaan u sheego muslimiinta siyaasiyiinta dadka isku dirayaaye masaakiinta isku gubayaaye nin walba guryaa uga dhisan nairobi iyo meelo ka koreeya markay holocdana xidnahood iyo reerahoodu nairobi iyo meelo ka koreeyay jiraan oo ula cararayaan laakiin masaakiinta degan ee meelay u cararaan lahayn dabka la isugu dhiibayaay ayagaa ku holcaya inay fahmaan sidaas waana tii Soomaaliya ka dhacday waa intii gubtay markii dabkii holcay nin walba carruurtiisa iyo reerkiisa banaanka ula cararo ama banaankayba u jireen bayaa gubtay masaakiintii baa gubatay inaan fahnaan u baahannahay maxaa danteena war maxaa dan inoogu jirtaa waryaana laga lugmeersanin waryaana lagu ciyaarin war siyaasi yuusan lagu ciyaarin oday khariban yuusan lagu ciyaarin danaha naga yuusan ku ciyaarin amniga naga yuusan ku ciyaarin carruur dhalinyarada naga yuusan ku ciyaarin xoolaha yuusan ku ciyaarin nin dan leh inuu kaa lugmeersado kugu dangaaro adiguna aad natiijada iyo midhaha khadhaar goosataay masale saxsan maaha caqliga ha loo noqdo waxyaalaha noocaasoo kaleetana ha laga fogaado meel walbaan joognana aan noqonno tusaale wanaagsan oo wanaagga iyo khayrka iyo akhlaaqda wanaagsan lagaga daydo xumaantana haba yaraatee aynaan agteeda marin bal inaan maslaxada ka talinno wanaagga ka talinno heshiisiinta ka talinno nabadda ka talinno ummadda laysu soo jiido safiiha la qabto waajibkeennu kaa isaga way haddaan nahay ummadda muslimka ilaahay rumaysan sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin